Bismillahi raxmaani raxiim. Kusoo dhawaada shabakada Samcoders. Waa aniga Cabdifataax Cabdullaahi iyo kooraskeeni barashada aasaasiga ah ee JavaScript. Qaybteen waxaan ku baran doonaa modules. Module muxuu yahay? Waa file ama script ka tirsan projectigaaga oo aad la soo wadaagaysid file kale. Waxaa inta badan ku baran doonaa wax la dhaho named exports, default exports. Sidoo kale faylashaas marka aad u ogolaatid in la isticmaali karo hadhow waxaa sameynaysaa import waa soo dejisanaysaa oo faylkaagan kale ayaad usoo import garanaysaa. Waxaynu isticmaalnaa qaybteena VS Code oo aynu isticmaalnaa text editor haddii kuwa kale kugu jiraan Sublime text ama Atom oo kale waa nala socon kartaa. Sidoo kale modulesku waxay ku shaqeeyaan server ama Apache hayso. Haddii aadan haysan server waxaa isticmaalaysaa extension-kan la dhaho Lifesaver oo waxay ku shaqeysaa VS Code intaan ogahay. haddii Atom ama Sublime text ay kugu shaqeynaysana noocyadeedaas oo kale ayaa raadsanaysaa. Ugu horreyn waxaanu samaysanaynaa file HTML oo la dhaho index.html oo ah main pointigeeni iyo script ama index.js. labadaas ayaynu inta badan isticmaali jirnay JavaScript markaan joogno. Index.html markaan joogo waxaan isticmaalayaa shift iyo exclamation marks si aan boilerplate ama template HTML ku waraysa u samaysto. Modules ayaan u bixinayaa. Halkan waxaan soo import garanayaa scriptigi ayaan u yeedhiyaa script. Source-keedana wuxuu yahay index.js. maadaama aynu modules ku shaqeynayno scriptigan waxaa u baahan tahay attribute kale in lagu daro. Waxaan ku daranaa type oo ah module. haddii kale modules ku shaqeynayaan aad halkaas kaga hubi mar walba. saynu u tijaabino in koodhkan inoo shaqeynayo waxaan leenahay alert marka aynu pageka soo load garayno ready soo saar. mar walba koodhka unit test martaba inta ugu yar baa la tijaabiyaa in wax ku shaqeynayaan intaadan koodh badan qorin. Lifesaver-keena ayaan kicinaynaa. Yes, ready ayuu soo saaray. waa diyaar pagekeenii. waayahay moduleska ayaynu tijaabinaynaa marka. halkan waxaanu ku samaysanaynaa laba file oo mid yahay tusaalaha user.js. userkaas ayaynu tijaabinaa. userkan waxaanu sameynaynaa let ama const user objectigaas oo leh name. qofka magaciisa waxaa la dhahaa Cabdi. okay, marka userkan ayaan waxaan rabnaa inaynu index ka keenno. indexkuna inuu ka soo saaro pagekeenii. sidee baynu samayn karaa marka? waxaanu samayn karnaa intan ayaynu waxaan leenahay export ayaan raacinaynaa. exportiga noocan waxaa la dhahaa named export oo waxaa tiri export iyo variable-kaagii. marka maadaama aad u ogolaatay in faylkan la isticmaalo waxaad usoo import garanaysaa. import ayaad leedahay. weliba faylka magaciisa maaha waxa weeye waa user waa variable-ka. user from xagee kasoo import garanaysaa ./user.js oo ah faylka JavaScript-ga ee ku ogolaanaya. ./kaasi waa folderskaagii ama directory-yadaadii. haddaadan ./ka raacin waxay moodaysaa JavaScript-gu inaad soo dejinaysid package. inta badan packageska ./ lama socoto. ./ku waa wax allaala wixii ka tirsan projectigaaga faylashiisa iyo folderskiisa. sidaynu userka ugu yeedhno halkan console.log baa isticmaali kartaa ama waxaan leenahay simply alert user maadaama object yahay .name bal qofkan magaciisa ay soo saar. waxa ugu horeysa import marka aad export sameynaysid oo ah named export. importiga waxaad ku sameynaysaa calaamadan curly braceska. haddaynu refresh garayno waa kan lifesaver-keeni ayaa sameeyey ready ayuu soo qoray kabacdina Cabdi. haddaynu mar laba refresh garayno Cabdi ayaa soo baxaya oo ah qofkan magaciisi. sidaas ayaa samayn kartaa. haddana waxaad samayn kartaa mid kale oo ah tusaale ahaan datadaas waxay la mid tahay array of numbers. tusaale 1 2 3 4 5 markaad tirahdid iyadana waa export garaysa. tan sidee iyadana u import garan kartaa? halkan waxaad raacinaysaa hakadun alada data. haddaad istiraahdo data maxaa ku jira oo aan console.log isticmaalno markaan console.log waa ku baran doonaa markaynu galno DOM-ka. aynu dhahno data maxaa ku jira oo aynu save dhahno. aynu dhahno inspect element kabacdi console-ka eegno data waxaa ku jirta arraydaas 5 number. marka halka waxaa ka fahmaysaa marka la joogo named exportska inaad qaabka marka u export garaysid
qaabkan ay import gareyn kartid. marka qaarkood waxaa isticmaali kartaa all. waxaa dhihi kartaa userkan oo kale hadduu dheer yahay as baa dhihi kartaa as u datadana waxaa dhihi kartaa as d. adiga wax micno kuu sameynaya haddii micnaha faylka soo import gareynaysa variablekiisu dheer yahay alias ayaa sameyn kartaa. haddeer user u yeedhi maysa, waxaa dhihi kartaa u.name ayaa console.log dhihi karnaa waa cabdi, ama waxaan u yeedhi karnaa datada ka koowaad oo lambarka koowaad oo hal ah, ama datada oo dhan ayaynu u yeedhi karnaa oo array ah. taas waxaa la dhahaa iyana named export adoo adeegsanaya alias. mararka qaarkood adiga oo sidan adeegsanaya uma baahnid maanta inaad mid walba export ka horeysid. labadan oo kale waxaa ku bedeli kartaa iyadoo sida variabladaas waxaa dhigi kartaa export, kabacdina waxaa gelinaysaa curly braces, waxaa dhigi kartaa user, kabacdina waxaa dhigi kartaa data. sidan iyana si lamid way shaqeynaysaa, oo ujeedaa inay shaqeynayso. oo haddaan indexkeena u yeerno u.name, user.name kana waa cabdi. inta marka laga yimaado waxaynu eegaynaa oo kale exportiga laftirkiisa waxaa ku dari kartaa alias. hadda tusaale ahaan userka as waxaa dhigi kartaa user data, kan waxaa dhigi kartaa datadana waxaa u bixin kartaa number data. labadaas taas marka u export gareysid oo aad alias ku dartid, markan userka uma yeedhaysid importiga joogtid aliaska ayuu yeedhaysaa. userka wuxuu ku noqday user data, datadina waxay ku noqotay number data ayay ku noqotay. haddana haddaynu tijaabinaydana export number data is not defined, number data asti baan ka tagnay, waxaan leenahay data as aliaska ayaynu ku darayna. haddaynu u yeedhno cabdi wuu shaqeynayaa. haddaynu u yeedhno tusaale ahaan datadeenii oo d aynu soo aliaska ka dhignayn waxa ku jirana way noo soo baxayaan. marka kaasna waxaa la dhahaa named exports oo leh alias iyo named imports. marka haddii aad exportigaagan u samaysid alias, khasama importigaagan inay alias u samaysid. halkan hadda aston oo kale waa ka reebi karnaa, kana waxaynu ka reebi karnaa aliaska waa ka reebi karnaa. haddeer waxaynu u yeernaa user data, waxaan leeyahay kana user data dot name. waxaa kusoo baxaya magacii, number datana saasoo kale ay kugu soo baxaysa. intaa marka laga yimaado exportigu way badan kartaa. haddaad doonto waxaad samayn kartaa function cusub oo la dhaho tusaale ahaan function la dhaho get user name, kabacdina waxay kuu soo celinaysaa userkan dot namekiisa. save markaan dhaho functionka waxaan u baahannahay inaan export garan. laba siyaab buu export garan karnaa. hadda weli waxaynu joognaa named export halkan ka dhigi karnaa export. functionkan haddaan rabo inaan u yeedho xaggan aan imaanayaa, magaceedu maxaa la dhahaa get user name baa la dhahaa, iyadana waa u yeedhayaa. xaggan waxaan leenahay console.log get user name, functionkii odhan jiray. haddaynu save garayno waa info garaynaynaa, waxaa kusoo baxaya cabdi. marka qaabkaana waa export garay. haddii kalena waxaa dhahaysaa get user name functionka. marka halkan waxaad dhihi kartaa export get user name, maadaama functionkaaga oola baxday, ama get user haddaa functionkaaga oola baxday get user baa halkan u yeedhan kartaa. get user baa u bixin kartaa oo get user name functionkaa ku export garanaysaa. xaggana waxaa u yeedhaysaa get user ayaa u yeedhaysaa. iyana way kuu shaqeynaysaa. xaggan waxaan leenahay get user, maadaama functionka get user ula baxnay cabdi ayaa kusoo baxay. marka named exportsku qaabkaas u shaqeeyaan. casharkana dambe waxaanu ku dhigan doonaa default exports iyo qaabka u shaqeyso. aad iyo aad ayay mahadsantihiin, wabilaahi towfiiq.